Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada kanaalkeena Isha Ciyaaraha iyo xubinteennii wararka ciyaaraha. Warka ugu horeeya ee aan idin hayno ayaa ah tababaraha xulka Holland ee Louis van Gaal ayaa axadii la soo dhaafay dhaawac soo gaadhay kadib markii uu ka dhacay baaskiil uu watay, balse waxaa loo badinayaa inuu kursiga kaydka soo fadhiisan doono kulanka ay berri Talaadada la leeyihiin xulka Norway, kaasi oo go'aamin doona cidda ku soo baxaysa kaalinta koowaad ee Group G tartamada isreebreebka loogu soo gudbayo koobka adduunka ee Qatar 2022. Van Gaal ayaa markii dhaawacani soo gaadhayay waxa uu baaskiilkiisa watay meel ku dhow hoteelka uu xulkiisu deganaa ka hor inta aan cisbitaalka loo qaadin. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu tababarkii maanta ee xulkiisu lahaa kaga qayb galay isaga oo saaran gaariga ciyaarta golfka loo adeegsado. 70 jirkan khabiirka ahi ma awoodin inuu sidoo kale qof ahaan kaga qayb galo waraysigii warbaahinta ee maanta ka hor ciyaarta ay berri leeyihiin. Hase yeeshee waxa uu kaga qayb galay qaab virtual ama video ah. Waxa uu waraysigani ku sheegay intan soo socota: jidh ahaan ma dareemayo fiicnaan, balse maskaxdu weli way shaqaynaysaa. Tani waa sababta maanta aan u gaabinayay tababarka, balse aan sameynay wax walba oo caadiyan aan ugu diyaar garoobi jirnay kulamada nagu soo wajahan. Dhanka kale, maalmihii ugu dambeeyay ayaa u ahaa taageerayaasha Barcelona mid wacdarihiisa wata dhanka soo laabashooyinka. Waxaa shaqada macalinimada ee kooxda la wareegay halyeegii kooxdan ee Xavi Hernandez, halka uu isna dib kooxda ugu soo celiyay Dani Alves oo ahaa isna mid aan Xavi ka dhicin dhanka wax u qabashada kooxda reer Catalan. Xiddigan reer Brazil ayaa dad badan u tixgeliyaan mid ka mid ah daafacyada bidix ee ugu wanaagsanaa kuwii dunida soo maray. Waxa uu sidoo kale yahay xiddiga ugu guulaha badan dhanka koobabka, isagoo khaanadiisa koobabka ay ku jiraan 42 koob. Guulihiisa ugu waaweynaa waxa uu gaadhay muddadii uu ka tirsanaa kooxdii Barcelona ee uu Pep Guardiola macalinka iyo garwadeenka u ahaa intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012. Hadda isagoo da'diisu ay tahay 37 jir ayuu Catalonia dib isaga xaadiriyay, hase ahaatee sida uu sheegay xamaasadiisii iyo tamartiisiiba waxba iskama bedelin. Dani isaga oo ka hadlay dareenkiisa ku soo laabashada Blaugrana waxa uu warbaahinta u sheegay hadalkani: waa sharaf iyo xushmad in aan mar kale halkani ku suganahay. Xirashada garamadan waxa ay ka dhigaysaa in aad dareentid sidii aad superhero ama haliyey awood sare leh tahay. Xirashada garamadan waxa ay sidoo kale siinaysaa awood iyo adrenaline badan. Waxaan doonayaa in aan adrenalintani la wadaago saaxiibada aan isku kooxda nahay. Dani Alves ayaa la filayaa inuu xidho garamada lambar 8, waxaana lagu soo bandhigayaa garoonka Camp Nou maalinta Arbacada ah ee nagu soo aadan. Inkasta oo kooxda la tababaran doono laga bilaabo maanta, haddana looma ogola inuu safto ka hor January-da soo aadan. Imaanshihiisan ayaa la filayaa inuu qolka labiska ee kooxdani ku soo dari doono xamaasad iyo kalsooni waayahan dambe laga waayay halkaasi. Asxaabta nagu xidhan muuqaalkan ka hadlayay wararka ciyaaraha ugu dambeeyay oo aad u koobnaa intan ayuu ku egyahay. Fadlan ha ilaawin inaad like iyo share basaartid muuqaalkan, sidoo kale subscribe garaysid channelkan haddii aadan hore u saarin. Waan idinkaga tagaya fi amaanillah. Wassalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala.